سلام صاحبي يا رسول هذا وحرجينا في عندنا حالدينا دغدغيته kusoo dhawaada videogeena maanta soo laabash wanaagsan sideedaba nolosha qofka bani aadanka ah dhan walba waxay ku sugantaa isbedel joogto ah laga soo bilaabo markaad dhalato waad koraysaa oo waa lagu korinayaa kadib caruurnimadii ayaad ka baxaysaa oo waxaad noqonaysaa qof weyn oo qaangaar ah kadib waad guursanaysaa oo reer baad yeelanaysaa intaa kadib qoyskaaga ayaad sii maamulinaysaa caruur aad dhalaysaa kadib waad duqoowaysaa oo qabriga ayaad isku sii diyaarinaysaa intaan oo dhan waa qofkii uu Ilaahay u qoray caruurtaadii ayaa haddana isla sidaadii soo maraya marka nolosheena waa cycle oo isbedel joogto ah jiritaankeenu waa isbedel joogto oo aan dhamaad lahayn ilaa laga gaarayo waqtiga Ilaahay ugu talagalay qiyaamaha jiritaankeenu waa isbedel oo isku isbedel kale maadaama aanad mar walba isbedelku aadan hureynin oo ay qasab tahay inaad isbedesho maxaa inoo diiday nolosheena wixii aan ka bedeli karno inaan ka bedelno ee dhanka wanaagsan sababtoo ah doorashadaas iyo dooqas Ilaahay ayaa ina siiyay waa qofba iyo doorashadiisa qof walba noloshiisa iyo qof walba doorashadiisa furaha isbedelka nololeed waa go'aanada maalinlaha ah iyo doorashooyinka kala duwan ee sameynaysid maalin walba go'aankaad maanta qaadato ayaa saameyn weyn ku yeelanaya isbedelkaaga nolosha mustaqbalka maanta go'aankaad qaadato ayaa ka xoog badan kii shalay aad qaadatay kan bari aad qaadato doontid ayaana ka sii xoog badan kan maanta kuleyba isbedel waad maree ee dooro isbedel aad ku kalsoon tahay oo aad ku faani karto noloshaada dambe waa sababta ay doorashadeena iyo go'aanadeena ay muhiim ugu yihiin horumarkeena nololeed iyo inaan sameeyno isbedel wanaagsan oo aan ku xasiloonahay marka si aad u wanaajiso isbedeladaada nololeed afar talaabo muhiim ayaan kula wadaagay in aad sameyn karto si aad u hagaajiso isbedelkaaga nololeed talaabada koowaad ay tahay inaad qaadida waxay tahay iska saamax naftaada wixii hore ku soo marayna iska cafi iska saamax naftaada sababtoo ah iyada ayaa ku dhigtay booskaad maanta aad taagan tahay waxaa keenay adiga u raacaya rabitaanadeeda oo aadan ka celin wixii u darnaa adiga ayaana sabab u ah meeshaad maanta joogto sida awgeed haddaa rabtid inaad hore u dhaqaaqtid wixii hore cafis iyo masaamax hadda iyo nolol cusub iska ilow wixii rafaad iyo dhib ku soo maray wixii tagay way tageen laakiin adigu weli waad nooshahay oo waad isbedeli kartaa iska cafi cid walba ku dhibaataysay sababna u ahayd noloshaada maanta aad ku sugan tahay ogow oo xaqiiqso inaad isbedel diyaar u tahay maskax ahaan iyo muuqaal ahaanba isku diyaari xuubsiibasho miisaanada dhibaatooyinka ku saaran iska deji xor noqo qof sameyn kara wuxuu rabo diidi karana wuxuuna rabin talaabada labaad bedel waxaad bedeli karto isla markaas aad taagan tahay waqtigaas aad joogtid maxaad iska bedeli kartaa isla daqiiqadaas waqtigaas aad taagan tahay isweydii daacadna isku noqo oo naftaada been ha u sheegin maxaad noloshaada ka bedeli kartaa muhiim ah inay wax weyn ahaadaan isbedel weyn u ahaado horumarinta nolosha lagu sheegayo ma ahan hal mar ayaad cirkaas tagaysaa talaabooyin yaryar ee maalin kasta aad qaadayso ayaa horumarinaya noloshaada shakhsiyadeed boqolkiiba boqol mana ahan isbedel oo boqolkiiba boqol noloshaada dhan hal mar aad bedelaysid isbedelka noocaas ah ma sii daahayo oo isla sidii ayaad ku soo laaban doontaa waxa yar aad bedeshid ayaa hadhow saameyn weyn ku yeelanaya isweydii waqtigaad joogtid waxa sameyn kartid kuna dhaqaaq waqti kalena ha sugin talaabada saddexaad ka fiirso go'aanadaada maalinlaha ah sababtoo ah go'aankaad maanta qaadato kan berita ayuu saameynaya kan beri dambe ayuu saameynaya sidaas awgeed mustaqbalkaaga waxay ku xiran tahay go'aankaad maanta qaadato sidaas ayuu isbedelka noloshaada ku sameysmaya dhinac wanaagsan ama dhinac xunba maadaama go'aanadeena ay mas'uul ka yihiin isbedeladeena nololeed waxaa qasab ah inaan si fiican uga fiirsano go'aanada aan qaadanayno ha ahaado mid fog ama mid dhow sababtoo ah labadaas go'aanba saameyn weyn ayay ku leeyihiin habsocodka noloshaada qodobka afaraad doorashadaada wanaaji micnaheedu waxay tahay ka soo qaad maalin walba laba go'aan ayaad qaadanaysaa mid oo kuu fiican yahay midna isla waqtigaas kaliya ayaad ku raaxaysanaysaa shaleeto ayaana ka dambeynaysaa tusaale ku laabashada hurdada subaxii haddii aad hurdada ku laabato waxaad soo toosaysaa waqti dambe waxaa kugu furmaya degdeg waad daahaysaa laakiin hurdo macaan ayaad helaysaa markii aad ku laabato cagsi haddii aadan ku laabanin oo aad soo kacdid jirkaaga active ka dhigtid aalmiinta aad samaysid quraan aad akhrisid si fiican u quraacatid qaboysatid oo isdiyaarisid meeshaadii waqti ayaad ku tagaysaa degdegna ma kugu furna natiijo wanaagsan ayuu leeyahay midkaan dambana shalayto iyo daahitaan iyo degdeg far badan labadoodaba waa laba doorasho oo aad maalin walba aad sameynaysid midii aad dooratid ayayna noloshaada ku xirmaysaa waa laba doorasho oo kala duwan marka doorashadaada wanaagsan waxay leedahay saameyn wanaagsan doorashadaada xunna waxay leedahay saameyn xun waa adiga iyo doorashadaada marka wax walbo aad dooranaysid ku dooro dhanka faa'iidada iyo waxtarka kuu leh adiga iyo noloshaadaba oo isweydii intaadan doorashada sameynin maxay tahay saameynta ka dhalan karta maxayse tahay caqabada aniga iga soo wajihi kartaa haddii aan doorashadan sameeyo dhinacyo fara badan wax ka eeg oo doorashadaada ha ku degdegin isweydii su-aal ah haddii aad samaysid doorasho qaldan ma xamili kartaa caqabadaha ka dhasha iyo dhibaatooyinka ka dhasha mase u dulqaadan kartaa noloshaada habkay noqon doontana ma tahay mid adigu aad rabtid haa jawaabta hadday tahay qaado maya hadday tahayna
ka fiirso. Ka dhig duruufaha iyo caqabadaha nolosha ku soo maraya kuwa aad ugu gudbi kartid doorashooyinkaaga wanaagsan. zamankan aan joognana waxaa badan doorashada dhanka shalaytada iyo murugada. Waa sababta inteena badan ay nolosheena isku bedeli la'dahay. Waa sababta uu xumaha u batay nolosheenana ay u qalafsan tahay. Isticmaal oo hirgeli 4 tallaabo noloshaadu way isbedelaysaa oo wayna horumaraysaa eebba idinkii. Maantana videoga intaas ayuu ku egyahay. wixii qalad ay iga dhacay kala hadalahada aad ugu maasantahay daawashadada. Subscribe saar channelka, like saar videoga, siina share gareey. Waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno. Waxaa inoo balana videoga xiga. مع السلامة.